كاي دد اسكو دوبان وي maxay qabanayaan waxa la yiri wanaagay farahayaan xumida iska reebayaan waxa lagu xijiyay wayuqiimuna as-salaa wayutuna az-zakaa wa cibaadooyinkii fardacaynka ayaa ku xiga laakiin waxa la soo hormariyay cibaadadii fard kifaayaha ahayd saamaynta ay leedahay culimada qaar baa yiraaha hadii arkaanu islaamku ay lix ahaan lahayd hadda waa shan haday lix ahaan lahayd midka lixayn la wuxuu ahaan lahaa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar buu ahaan lahaa saamaynta uu leeyahay ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله انتاس ايي سميان مؤمنين تاي مؤمناتك محي لهيان اولئك سيرحمهم الله marka inta sameeyaan oo isku duuban oo macruufka la isfaro oo munkarka la iska reebo oo xaqullah la guto markaas ayaa naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan la dayicin qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khayr hal idin ka dhaxelo hada muslimiinti tihiin waa in idin ka dhaxela umma jamaa dad ama koox yad'una ila al-khayr dadka khayrka ugu yeera wayamuruna bil ma'ruf dadka wanaaga fara وينهون عن المنكر حمد كريبه محي هلاهيان واولئك هم المفلحون كواس ليبانهي marka naxariista Ilaahay iyo liibaantu intuba waxa ku jirta ama laga helayaa markii macruufka la isfaro oo munkarka la iska reebo waxa kamid ah fardul kifaayaha in loo soo jeesto in dadka la kaalmeeyo dadka baahan in la kaalmeeyo oo mashruucooda loo soo jeesto oo dadka isdagaasho la heshiisiyo waa furudul kifaaya min najwaahum dadka shirahaya hada intaas waa la shirahaya laakiin badana waxa caamka looma shiree waxa khaaska ah loo shira qabaa'il cabanaya oo ka cabanaya saamigii ay ku lahaayeen siyaasadda ama qabaa'il siyaasadoodii ka cabanaya ama siyaasiyiin kala cabanaya umbashira laakiin shir loo shirahayo in dadka wanaaga la faro xumida laga reebo in dadka baahan hamdan kafiiran tayyiban mubarakan fihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah ittaqullah wala riyal waxaan ku jirnaa khudbooyinkii xiwaankoodu ahaa maxaa lagu wada joogi karaa waxaan soo marnay waxyaalaha keenaya in dadka muslimiinta ay kala jabaan oo daciifaan oo wada joogi waaya waxa weeye inaysan fahamsaneen cibaadooyinku anwaacda ay leeyihiin iyo saamaynta ay sameeyaan inay ku dadaalayaan cibaadada qofka asaga ku eg ay ilowsan yihiin cibaadooyinka faa'iidada badan oo ummadooda gaarahaya inay ka taxadarayaan dambiga ayaga iyo rabbigood ka dhaxeeya laakiin ay fududaysanayaan dambiga ay ka galayaan ummadaha kale iyo bulshada inteeda kale fahamka noocaas iyo mujtamaca isku hayn maayo ee waa kala diraya waxa kamid ah mid ayada ah oo maanta aan qaadanaynaa in muslimiintu way ku dadaalaan waajibka qofka saaran ama waxa loo yaqaan fardi caynka sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo waxa la midka ah oo qofka shakhsi ahaantiisa saaran oo loo yaqaan fardi caynka ayaa lagu dadaalayaa bihamdillahi ta'ala Allah naga qabalo subhanahu wa ta'ala laakiin waxa la halmaamsan yahay ama la fududaysanayaa farad kale ayaa jira faradka ummadda ka wada dhaxeeya oo loo yaqaan fardul kifaayat ama furudul kifaayat oo ummadda laga wada rabo inay u istaagaan qayb kamid ah midaas oo ummadda marka isku haynaysa oo mujtamaca difaacaysa oo maslaxada caamka waardiyeynaysa cibaadooyinka fardacaynka ah maslaxada caamka badana aad uma saameeyaan laakiin waxa saameeya ma maslaxada caamka waa fardiga loo yaqaan kifaayadka furudul kifaayat oo keenaya mujtamac istaaquleynaya mujtamac soo jeeda mujtamac awood leh isdifaacaya waxa ka dhaxeeya yaqaana difaacanayana
فروض أيضا وحاكمذا إن مجتمع وناق إسفره حمذا إسكر ريبه وحق الله لا إلاليه حق الناس لا إلاليه قفكي كحد قد بهيانا أمض وإسكا قبطه إن درين كاس لقاته وفروض الكفايات أولو استاذ إله سبحانه وتعالى مؤمنين تا يا مؤمنات حكوت المامي إن يهين كوا وناق إسفره حمذا إسكر ريبه وناقو فرض عنك كليا معه وناقو عبادوينك إلهي حقي سأكليا معه منكركو ذنبك إلهي لقلي كليا معه معروف كحكستو وناقه أو حق الله حق الناس بسوق ليه منكرنا واحد سوق ليه وحكستو حن أو حق الله أو حق الناس سوق ليه قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا لقى بالله مؤمنين ترجع يكون دمر كاي دد اسكو دوبان وي maxay qabanayaan waxa la yiri wanaagay farahayaan xumada iska reebayaan waxa lagu xijiyay wayuqiimuna as-salaah wayutuna az-zakaah wa ibadooyinkii fard aynka ayaa ku xiga lagu waxa la soo hormariyay ibadadii fard kifaayaha ahayd saamaynta ay leedahay culimada qaar baa yiraaha hadii arkaanu islaamku ay lix ahaan lahayd hadda waa shan haday lix ahaan lahayd midka lixayna wuxuu ahaan lahaa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar buu ahaan lahaa saamaynta uu leeyahay wayuqiimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu intaas ayay sameeyaan mu'miniinta iyo mu'minaadka maxay helahayaan ulaa'ika sayarhamuhumullah marka intaas sameeyaan oo isku duuban oo ma'ruufka la isfaro oo munkarka la iska reebo oo xaqullah la guto markaas ayaa naxariista Ilaahay baan subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu amrayaa in muslimiinta laga dhaxelo dad u taagan inay ma'ruufka dadka faraan xumida ka reebaan in loo istaago oo aan la dayicin qala ta'ala waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khayr hal idin ka dhaxelo hada muslimiinti tihiin waa in idin ka dhaxelaa أمة جماعة ضد أما كوح يدعون إلى الخير ضدك خير كأوية ويأمرون بالمعروف ضدك وناقفرة وينهون عن المنكر حميدة كرهبة محيه لهيان وأولئك هم المفلحون كواسا الليبان هي مركا نحريس إلهي إيا الليبان انتو باوحا كجرتا أما لقيه لهيا مركي معروف كالإسفره أو منكر كالإسكره وحاكم إذا فرض الكفاية إن لو سوچيستو إن دادك لكالميو دادك باهن إن لكالميو ومشروع إذا لو سوچيستو ودادك إصدقاشا لهشيسيو وفرض الكفايات وي قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم دادك شرهيا هذا انت سؤال الشرهية لكن بدنا وحا عامك لو مشره وحا خاصك لو شره قبائل عبانية وكعبانية سامي أي كلها هي سياسة أما قبائل سياسة دودي كعبانية أما سياسيين كلا عبانية مباشرة لكن شر لو شرهية إن ددك وناق اللفرو حمد الله غريبه إن ددك باهن لكالميو إن ددك عشان لهشيسيو أي آيات أمانيسة لا خير في كثير من نجواهم إن بدن أو ضدك فقه ذا كمده خير مرها إلا من أمر بصدقة قفكي صدقة فريا ماهن لسهو يمد ودبك ساجرة وحل صدقيست أو معروف أما ضدك ولاك فريا أو إصلاح بين الناس أما ضدك إصلاح لحدوده ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله قفك مدى السماء أسرع إلهي أجر كغربة فسوف يؤتي أجر عظيم إلهي أجر وين بوسينا مركا إن أمضوا إيهاتو أمضوا إسكا ورقبتا ودباتنا تشيرتا حلنا إيسا وكشير إيسا وحكا سمين إيسا قفك مسلم كامانتي ودذالا يتكن يصوم يسلاذيا وحلقا يابا إنه سنلحين وح مشروعة ومديسة كسابسا
مشروع كستا أساق دنتي سوي لكن انت اسكو ليحتين أو لاسكو يمد إن dadku ay sameeyaan mashruuc lagu kaalmayo agoon lagu qoodinayo mashruuc dad wax lagu barahayo mashruuc dad lagu daaweynayo mashruuca aaleedahay muxuu yahay markii laga yimaado salaada iyo soonkaaga iyo zakadaada iyo umrada xajkaaga iyo adoo shaqaysanaya iyo hadii qof ku simi qof uu maarta ku shaxada wax siisid waa la gartay laakiin mashruuc baa loo baahan yahay ummadda anfaca nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegaya in loo baahan yahay in la iskaalmeeyo oo qofka shaqada haya shaqada kale laga qabto qofka mujaahidka oo dagaalamaya gurigiisa baa dayacan baa laga yaabaa caruurtiisa baa dayacan baa laga yaabaa yaa u maqan inuu qabiil aadam maahan qof Soomaali ahaan u soo raadinaya waa yar yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay xadiidka Bukhari warinayo man jahaza ghaziyan fi sabilillah qofkii diyaariya qof wadada ilaahay ku jihaadaya qof ilaahay wadada ku jihaadaya annaga maanta ciidankeena Soomaaliyeed oo la dagaalamaya nimanka daalimiinta khawaarijta ah waa dad muslimiin oo jihaadaya way Allah ka aqbal leeyahay u dhameystiro kuwaas oo la diyaariyo mooralka loo dhiso waxay u baahan yihiin la siiyo la diro qofkii qof mujaahid dira uu jihaadi ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا qofkii qof mujaahid oo baxay gurigiisa ahalkiisa ka warqaba oo u dhaqaaleeya asna waa jihaad marka kii baxana waa jihaaday midka jooga oo guriyihii caruur ka warqaba asna waa jihaad la leeyahay xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu sheegayaa halka leeb ama gaboon la sameeyo gaboonkaas oo jihaad loo isticmaalo saddex qof baa ka faa'iideysa leeyahay oo janno ku galaysa kii sameeyay gamoonkaas midkii soo gaday oo keenay iyo kii isticmaalay saddex qof buu isku marayaa oo janno ku helaya iyo rabbiga subhanahu wa ta'ala marka in la isku kaalmaysto wanaaga oo la maaragtay muslimiintu qof kasta uu meel ku aadaa la rabaa marka meel la'aan ha noqonin umadu waa dayacan tahay baahidu waa badan tahay waa inaad meel gashaa loo baahan yahay meel caam weeyaan midaada khaas ah Allah ku barakeeyo laakiin meesha caamka ku jirta waa xagee dad ay taam iyo agoon miyaad quudisa masaakiin miyaad quudisa dad jiran miyaad daawaysa waxa loo baahan yahay la sameeyo insha Allah ta'ala in dadka muslimiinta isku kaashadaan in dadka daalimiinta iska qabtaan waa shaqo weyn oo qiimo leh weey hadii umadu isku timaado dad xun baa jira maadaama la isku yimid isku imaatinku faa'iido waa leeyahay dibna waa leeyahay waxa dibkiisa kamida qof ka maqnaan lahaa oo aadan weliga aragteen ayay keenaysaa dawladdu ama magaalada keenaysa nolosha keenaysa marka dad noocaas isku imaan nooc ah marka qaarka daalimiinta in la iska qabto ayaa loo baahan yahay oo mud ogolaanin in la dulmiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay asagoo yar oo 20 jir ah inta aan loo soo waxyoonin diinta inuu ka qayb galay iskaan shaambuursi ama xilfi quraysh ee ku sheemaartay ku heshiiyeen in Makka qof kasta oo daalim ah la qabto in Makka qofkii madluum ah jooga loo gargaaro ay ku heshiiyeen shirka asaga waxa lagu qabtay meesha la yiraahdo daaru iskaalka la yiraahdo Abdullah ibn Jud'an daartiisa la isku yimid waxa lagu heshiiyay in Makka qofkii daalim ah ku nool la iska celiyo qofka madluumka la taakuleeyo ay ku heshiiyeen nabi sallallahu alayhi wasallam leeyahay waxaan xaadiray xilfigaas ayaan xaadiray iyo kulanka asaga ah hadii maanta la eegu yeero anigoo nabi ah buu ka wada oo rasuul hadii la eegu yeero kii oo kale oo la yiraahdo waxa la isku kaashanayaa in daalimka la iska celiyo nabi sallallahu alayhi wasallam leeyahay waan ajiibi laha marka in daalimiinta la iska celiyo waa shaqo weyn oo u baahan in la iska kaashado ummaduna maarad ku baraarugto marka ummadda maarad shaqada saar way badan tahay waa kala nooc
hal meel lama wada aadi karee qofka inuu maaragtay shaqo qabto oo ummadda taakuleeya loo baahan yahay oo meel ku aado haddii middaa la sameeyo ummaddu waa hagaagaysaa insha allahu tacaala waana iskaabaysaa waana iskaalmaynaysaa way dhammaystirmaysaa waddamada maanta loo qaxahayo oo dhallinyaradeenna u tahriibayaan oo say u gaari lahaayeen badda ku dhimanayaan oo dhib u bareerayaan halkaas waxaa yaallaa maxay yihiin halkaa waxaa yaallaa diin maaha halkaas waxaa yaallaa cibaado maaha halkaas waxaa yaalla dad dantooda gartay baa la aadaya dad iskaalmeeyey baa la garanaya baa la aadaya dad qofka baahan kaalmeeye ayaa la aadaya dad cadaaladda iyo daalimka iyo madluumka kala yaqaana ayaa la aadaya marka waxaa la martinayaa oo martida loo yahay diin saxiixa maaha caqiide saxiixa maaha ee waa camal saxiixa weeyaan waa waxa loo yaqaano furuudul kifaayaat ayagu diin ma laha laakiin shaqada ay hayaan waa furuudul kifaayaadkii diintu amraysa weeye in qofka baahan la kaalmeeyo in miskiinka loo naxariisto in qofka daalimka la iska qabto waa furuudul kifaayaat tii bay garteen markaasaa la martiyey annagina waa garan la'nahay xadiidkan muslim warinayo baan kusoo khatimayaa oo nebigu sallallahu alayhi wasallam uu noogu sheegayo wax la yaab leh waxaas waxaa weeye taquumu saacatu qiyaamuhu wuxuu dhacayaa waruumu akharu nnaas ayadoo ruum waa yurubka laga yaabaaye ay yihiin kuwa dadka u badan ayagoo soo kabtay oo batay oo baraaray oo barwaaqoobay ayaa qiyaamuhu imaanaya marka ninka la oran jiray Amr ibn Aas ayaa la yaabay warkaas wuxuu ku yiri ninkii saxaabiga ah war waxa leedahay ka fiirso warkaas sidee uu yahay wuxuu yiri saxaabiga anigu wixii aan maqlan sheegaya oo nabi sallallahu alayhi wasallam ka maqlay oo ah in qiyaamuhu dhacayo ayadoo ruum ay dadka u badan yihiin markaas ayuu cilaynaya Amr ibn Aas ayaa cilaynaya marka cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo khibradiisa ayuu ku fasirayaa tolo waxaas maxay yihiin wuxuu yiri inna fiihim la khisal arba'an afar sifa ay leeyihiin buu yiri innahum ahlamu an-nas 'inda fitna haday fitna dhacdo kuwa dadka ugu xasiloo weey wa asra'uhum ifaqatan ba'da musiba wa kuwa hadii dib ku dhaco isla markiiba ka soo mujirsadaan وأوشكهم كرة بعد فرة وقوة سور قال عليا هدي عرران وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وقوة خير كبضان مسكينك يا أقونك يا ضعيفك وحوجر وخامسة من سنادنا وكترتايا وفي عن وأمنعهم من ظلم الملوك وقوة آد استقر وآد الديدة ظلمك بقرضة بيديدة siyaasadooda ilaashadaan qofka boqorka xukuumaha iyo dulmiga kama yeelaan marka siyaasad fiican bay samaystaan kooda daciifka ay taakuleeyaan haday wax dhacaan dad isqabto isashada weeye taasay ku noolaanayaan ay ku baraarayaan oo ku barwaaqoobayaan qiyaamuhu imaanaya ayagoo tiro badan marka waxay ku tiro badnaanayaan ay ku baraarayaan waxa weeye asbaabtan bay la imaanayaan oo ah in fuudul kifaayaat la yimaado oo ummaddu waxa isku haynaya ay ku baraarugto oo xoog la saaro fardu caynka waa noo socdaa fardu kifaaya ayaa naga maqan hadaan la sameeynin martiba la ahaanaya ummadeenu waxay u haqal taagaysaa dad aan diin fiican lahayn laakiin maamul fiican leh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد